geedaha saa loogu beeri lahaa. mid ka mid ah wadooyinka shidan ee caasimadda Puntland. wadada meel ku cusub tahay wadadan dadka u sharaxba xaafad bay dhex martaa wadadani. waa wana wado mustaqbalka noqon karta wado weyn oo maartay hatta quality da eegto xil badan dadka anfici doon la qiimeyso. xaafad aan dad badan joogin wadad noocan oo kale marka saa loo dhex mariyo baakinkeedii biyo marinkeedii maartay hadda togan laga horeeyo kale min amal bad meel goda ka galayso si kaloo ka duwan laamigii oo adkaysi laba loo dhisay sababta godka biyo badan baa maraya. halkaas hadda ka bilaabmaysa waa tog inta la dhex marayo dhanba hataa isku quality ma adeeg badan concrete na mudaan laga dhigo. marka ku darso wadadaas sidii xaafad bay dhex martaa xaafad waa laamiga waa jidkii soddonka wey magaalada dhan busaa ugu soo wareega. marka wadadan waxaa loogu talagalay baabuurta xamuulka ah markay boosaasiya halka ka yimaadaan sida traffic jam maartay ugu sameyn lahayn injiya suuqa dhexdiisa waxaan nibi lahayn inay kor magaalada kala wareegaan ama soddonka kala wareegaan labada wado oo furan waa in iyo out. marka barasho wanaagsan. xaafadda maxaa la yidhaha soo sheega xaafaddan magaceeda waa beriba ma bulsha ma magaceeda soo sheega magaceeda la iska rabaa. wadadani maadaama ay xaafad dhex marto isbiirka aad in hoos loogu dhigo wey ciyaalkii raa meel walba ordaya. wadada waa wada waxaan ku yidhi qofku aan aqoon badan u lahayn isbiirku la macaansanaya xoog buu soconay waana guryo dhexdiiba marta way xaafado halkaa ilmaa kasoo boodaya xagga nooyaa kasoo baxaysa xagga qof meel ku maqano qof kale la hadlaya soo baxay minaa waa guryo hortooda wadadii martay moogta. xaafaduna markay wada weyn hesho markiiba way isbedelaysaa. xaafadii kortay weynaatay baad arkaysa. wadooyinku waxay ka qayb qaataan horumarka iyo korniinka iyo xaafadu inay bataan population ku bato ganacsigu bato. marka wadadani markii ay xaafadan dhex mari jireen iyo hadda farqi weyn baa u dhexeeya. magaceeda la soo sheegay magaceeda xaafadda ilaahay roob bay weydiisan roob iyo amniga inuu noo siyaadiyo.
ودادي عادي وقوستين شوفنا مرورنا يا من عندنا على الله طلابي دي يا أنكو قصة من عندنا ودادي قوستين حق دم نجمر ويانا أنكو قصة أيوة قصة يعني لا ما قصنا يا they're just sorry we're beautiful on they're just looking شركة ودوين كان استعد بهم ما زلت شغالة وقت كل شغالين بتركي وحسن حافظون وين وضع إلى شذان بعها عقدها أيوة وحين يقول إذا حافظوا بس كنت تسوي بشتو عقد ماشي هتلا إيو كرتون يريب هو ناكسن هذا شو الحمد لله واللي روانا إلى شذان كل يحنون بدك كل علاج هذا ماشي لامي نقول لاين سو حافظ حيد بلامي قروح على اللون أحمر يمو سو ماليني كي وطن هايستا xaafadiisii wadada noocaas loo dhex mariyay laba ragcado salaatu shuuri inuu tukado oo subax walba hortiisa xaaqo hagaajista wey sababtoo caagadahan biyaha wasakhda dhagaxa laamiga saara marka laamigu jaamburku kululaado oo qoraxda ku dhacdo dhagaxaasi taayirka kusii dhaco dhaawacba gaari kara biyaha wasakhda balastiga lagu tuurayo qof walba inuu dawladda hoose iyo shaqadiisa meesha ka bannaan uu ka qabsado wax dhaama lawaa geedihii aan ku badino nimcada markaad haysatid ma garad markay kaa maqantoon baad garad ardadii waa la soo fasaxay iskuul baa ku yaalla meeshan iyo malcaamado qur-aan iyo علامتي أرضينا كتاب دوسيو صدح الواحة ترى متى سلم مريا أنت بحاجة ما هو قلل في الليل sidaa oo kale haddii qofka diido sidoo jidka mara maxaa dhacaa hadda xoog u soconaysid lagaa shakiyo gaariga number 1 gaariga la ordaysid taayiradiisa xabad lagaaga dhufto hadduu gaariga saa ku ista horta in xabadaadii lagu dhufto lagama yaabo laakiin booliska baabuurba horta wada marka hore kusoo cayrsanayo taayirka inuu xabadda kaaga bilaaba laga yaabo haddaa riski taho qof khatar oo waalan oo dadka dilaya tahayna adaa madax lagaa siina Amerika way ka dhacdaa gaariga hadduu istaagi waayo adigana aad istaagi weydo shafaaya baa ka dhacaysa soo amarka haddana la siiyey maxaa ka fahantay bee waxaan ka fahmay ma jirto just maxaa lagu dhahay dhankaan mar so that's it amarka intaa qaadatid laga fahmay I don't know what's going on in the outside of the street mar wadada waa furan tahay be I don't know
howlgal baa ka socda laga yaabaa meesha howlgal ya minaha waa maxaa la odhan karaa construction work ama mission minaha wax baa la fulinaya investigation baa ka socda baa meesha qof baa lagu dilay may minaha baaritaan baa doona dhaba sounds like a murder scene yes howlgal baa ka socda NCIS New York or Miami sure confused each other yeah what the babe meeshan adoo murder ka dhacayo investigation oo lagu suubiyaa yes so wax kasta waa la record garaynaa soo maaha sidii detectiveska camal oo kale ay dadka dariskii la soo waleysanay already qofku waa la soog yahay so investigation waa la suubinaa either way inkastoo saas u horumarsanaa laakiin ya maadaama dadkii qabiil reer iyo xaafad iyo family leeyahay markiiba xogta waa isku xiran yihiin qofku hadduu baxsado markuu joogaa laga soo qoonaya sababtoo leader iyo chief caaqil iyo garaad iyo isin iyo islaan iyo hawlaa jira odayaal caaqilkaaga la soo qabanaya oonay hebel raadi hawshaas u kale interesting very interesting why dadkan meeshan gaariga u dhaganayan ayagana isku xanimaysa waa fitan ya nin ba isgaarsiinaya ma laga wadaa haa saasa lagu celiyaa xaafadda ma degi lahayd no why I don't know yaa qabaa ku badan daris fiican bad degan illa kuma dareemaysid you know dariska waxay ku xun yihiin bay dadku especially Soomaalida codkan kama jarayo meesha saa ula socdo you know dariska waxay ku xun yihiin ku sheega they're all in your business especially Somali like ma yaqaaniin personal space saacaday rabaan ay kusoo raadsanayaan waxay rabaan ay ku sheegayaan si balaa xishood camal personal space yaa u baahan ba dadka waa bedel space ma xafadaa la isku garaaco la yiraahdo saaka maxaad ku caawa barideen maxaad karsanaysaan I don't have energy for annagu that canjeelaan karsanaa canjeelada iyo subag baan ku darsanaynaa waxaas camal la'aan oo idinku ma hilib iyo maraq baad karsateen meelaha waa la isweydiin karaa waxaa ka gacan karsaday so dariska waa inaa ogaataa xaaladiisa xaaladiisa banaanka laga ogaan karaa too much xaaladiisa si loo ogaado anaa jacayl isku qaba waxa la isku weydiinaya ma aha wax la kala qarsado meesha ma yaalaan I think way fiican tahay intii daris la kala ahaado laakiin waxyaabaha qaar wax kasta lagama sheekay karo cuntada iyo waxaasi waxaa karsatay waxa may walaal Soomaali I feel like mararka qaar gabadha jikada ku jirta guriga kale gabadha jikada ku jirta way siiqaana waa saaxiibo has yaqaanaan but that doesn't mean you can talk about everything
I just don't want you in my personal business. xumaanayga maaha. So xaafadda dhexdegan inta dadku badan yahay xaafadda kale ma wareegi lahayd. dadkeena look. Ma soo salaami lahayd, ma wareegi lahayd, ma dhex gali lahayd. waan soo salaama laakiin ilbaabkan ka salaama. Assalaamu calaykum. Ma Everything's gudaha good, gashid wey. alxamdulilah. No. Shaqa ma liimiya markaa gudaha galaa. Don't I have work? Look, babe. Soomaalida, especially dumarka, I think waxay yaqaaniin wax kasta ay rabaan inay ogaadaan. Everything, absolute, your whole family history. Like every, ma rabaan dhaqanka Ma Soomaaliya. Soomaali kaliya mise waa adduunka oo dhan? Soomaaliyan u hadli karaan soo Soomaali leh. Soomaaliyan ka dhashay soo Soomaali leh u hadli karaa. But dadka saxan jeceliyo waraafaad, you know? But dadkeena, they just ma yaqaanin privacy, like waxyaabaha ku gooniga ah way soo dhexgalayaan, they want saas ku bartaan. Marka qaarna xumaan kama ahan, we're social people. Laakiin marka qaarna inta la iska xishooday fiicanta. Dadka qaar ka ma xishoonayaan. So, okay, qofa maanta okay, let's say we're the new neighbors, okay? meeshan kusoo biirna anakaa ku cusub. waa lagu imaanaa, hi, how are you, everything. saasaa la rabaa intii lagu barto very quickly, dhaqsi. maxaa diidaya? waxaa lagu bilaabi karaa It's not that, hal tillaabay qaadanayaan. xogtii dhan waa laga hayaa markaas, kulligood oo wada FBI, waa haddaa ogolaatid. CIA, like espionage, waa spy. Mana waa isbaa wax wanaagsan, mana xogtada waa in la helo. Because gurigana ka soo baxda waa gashaa. But dad qaar aa jiraan oo saas, you know, u furnayn. Let's just say that they're not that open. And marka qaar they don't want to talk about everything. Qofka muxuu ka hadli karaa la wuxuu rabinta si uu ku sheego. Lama xooji karo, ma fahant? I don't know. I just think that kind of are very involved. They want to know everything. They want to know everything, babe. soo xiri karaa oo mari karaa qofku waa They want xaalad walba ku soo bixi kartaa. They want to know everything. Waxay insanahay diris wala noqdaa. Hadaa ma qajid qofkan uu jiran yahay masayina. Xalaad u suubi kartid u suubi. Xalaad ku caawi kartid ku caawi, laakiin zaid lama dhaxgalo. Afaraha qabso businesskaaga ku joog. Like, worry about your own life. Halaha wadidna qofka, you know, gacan ku sii ku hawlgaray. But too much Soomaalida lama dhaxgalo. That's what I think, at least. Hadaa rabtid nolol peaceful ah oo bilaa buuq. Because dad badan baa ka buuxo community-ga ah oo drama socda. And I know some people can agree with me. So yeah, that's what I think. waxaa leedahay I just don't want xogtayda inta la haayo. maxaa qarsanaysaa xoogaa? wax ma qarsanoobi, balaakin marka qaar ay waa kaa dhigaya midna wax qarsanooysid. Qof kasta ma hadlaaya le, you know, like I don't know some sheego. halkaas waa But too much laysma barto, laysma dhexgalo. No. baranaya. qasab ma aha dee, xoogna layguma lahan, qasabna layma baran karo. Information kan ku sii karaan, ku siinaan awoodo oon aniga ogolaanayo rabo. Hadaa ku qanacsanayna, please get out of my house. Gurigayga xoog iskugu soo invite garays, please iga bax markaa. xaafadda garow ku jeceshay. I don't know. xaafadda jid fiican. Like wherever there's a good road, I'm good with that. wadada ninka qofkana loo xereeyay. Who? maanta maxaa ka jira? Who, babe? casar liiqa galabtii casar hadda qoraxda baa halkaas imanaysa. It's so beautiful. ma garanaysaa meesha? Of course. waa xaggee? At one hospital.
isbitaalka guud ee Garowe. Please, codsi bay iga tahay, whoever is the director of like infrastructure in Garowe, qofka jidka dhiso hadday dhegeysanaysid, don't be offended, laakiin jidka si fiican ha looga taxadaro. Like this hospital right here, hadda, the road, it's built awkwardly. Like, bajaajyaasha meesha istaagsanayaan arkayno. It's like meel gooni bay u baahan yihiin those cars camal intii loo dhisay istaagaan ay ku parkaraystaan. But laakiin soo jidka u dhisan yahay waa si kale funny so maxay ku qasban yihiin oo I don't know they ku qasban yihiin but laakiin they chose inay jidka dhexdiisa ku parkaraystaan gaarigu. Laakiin minaga Bajaajka. Yeah. Bajaaj sharci ma lahayd. And please, this other thing, bajaajyaasha shaqaa laga qabto like. Ayo, bajaaj maanta Well, hawsheeda ku gashay. no. Ma bajaaj oo soo dhigatay maanta. Garowe, it's a really good city. It's a great city actually. And like I said before, they're building itself and all that, but like these Bajaj drivers, they have absolutely zero patience. Every day, now that's too much an exaggeration. Like waxaan ka wadaa Dadka waxa ugu dhib badan baa leeyahay bajaaj. at least every 2 weeks. Baslayaasha. Baska sababta subax walba wuxuu qaadaa basku qof xanaaqsan, qof faraxsan, qof wareersan. So booskii baska waxa ku jira Garowe marka la eego bajaaj. Bajaaj dabcad waxa ka xumaysan ma garanaysaa. Firi. Ama ka dhigay dad wada fudud oo wareersan. Dadkan soo raacaya ku xiranta maalin walba qof caayaya. Qof iyagina waa dad wareersan. Hadday doonaan taxi hore may soo kaxay. It's not even they wareersan yihiin xataa. Waa dhoocile yar yar oo wiilal ah. Wiilashu ma dhicila la dhahaa. Maxaa la dhahaa? Young boys, young adults, or teenagers. Dhoociliyo waa dhoociliyo. Minaha waa inama yar yar wiilal yar yar. Dhoocil iyo dhoocil. Bay kala yihiin soo ma? Yeah. Waa inan iyo inan. It's very hard based on your town. Laakiin these young teenagers or young adults in their mid-20s or something, it's like, oh my god, maxaad u malaysaa intii la dhahay jidka markaa geshid adiga baa leh waxaa rabtidaa ka suubi kartaa saad rabtidaa u dhaqmi kartaa they dulqaadkii caaqir buu aaday. They do not have any patience at all. badan oo dulqaad lahayn baa jira. Yeah, kaligood ma. Yeah, sometimes Garowe has reckless drivers, honestly. Asana magaalada wadooyin waaweyn baa haysataa oo maartay cidhiidhi badan maba jiraba. Laakiin meelaha qaar wadadan halbowlaha oo kale It gets frustrating at times, that's all. It just gets frustrating because they just, wallahi, their patience is in the pit of hell. I don't know what else to say, but that's my only criticism, that's all. ganacsi ugu fiican oo Garowe laga furi karo muxuu noqonaa? Gracias. Marka fiirisay. Well, I don't know. From the looks of it, they have a lot of restaurants. So if you're ever wondering about coming to Garowe and opening a lot of restaurants, forget about it. Unless you have like an original idea. Like, if you're thinking about international foods like Mexican food, Ma cunno waxaas. European or Latino foods or whatever, Asian, sure, come here, you'll thrive and all if your cooking is really good. Inta restaurant marka laga tago wax kale. Restaurant, there's no business in that. I don't think so. Waxa yar aan arkay that could be possible for you to like actually thrive in terms of business. Oh, sorry. It could be laundry and dry cleaning. What else? Bangiyo bareefada ma laga furi karaa? No. From the looks of it, had there bangiyashan. Like this bank over here, Salam Bank, Emil Bank. I feel like Garowe it runs on banks. Like it's oversaturated enough.
Premium bank. They don't need another bank anymore. Like they have Shield, Premium, Premier Wallet. Man. Premium bank. ولدك منها Oh, ولدك. okay. Like you're not. Don't think about building. Premium bank magacda. Horta inuu ka muuqdaa. Don't think about building a bank here. It's not. It's already oversaturated. They already have enough banks as it is. But maybe think about something else. The food, forget about the food. Restaurants, not really. Dumarka. If you're planning on like opening shops and all, dumarka dharkooda haddaa gadaysid iyo faarahas, that's oversaturated too. You're not really gonna find a market here for that because everybody has, you know, a woman's store. Pharmacies. There's no hope in that. Everywhere you look, there's pharmacies to like, you know, feed the world. So you can forget about pharmacies. Hotels, forget about that too because everybody has a hotel. Supermarket. Supermarkets too. Like they're all full. Ma badna laakiin. Gas stations, there's no business for that either. It's already oversaturated as well. But there's like a lot of other things with life that you can think about pursuing. It's just, I think when it comes to like making money, Soomaalida waa sidaan saan u arkay dadkeenu se u dhaqmaan. If you come up with a unique idea, tomorrow there's going to be somebody else building a shop with the same idea as you, so everybody's going to start doing the same thing as you, and then you're not going to be the only one in town with that unique business idea. But there's still a lot of hope and opportunity in making money here. You just have to come up with like something beneficial to the community, to the people, something that they actually need, and you might thrive here, you know? It's really possible. There's a lot of open market.